codsi waxa ugu yar ee lagu tilmaami karaa uu yahay mid yaab badan ayaa qof barbaarinta xayawaanka jeceli uu ka dalbaday deriskiisa in ay u ogolaadaan in uu laba libaax ku korsado barxadda dambe ee gurigiisa oo ku yaala Nottinghamshire ee gudaha dalka Ingiriiska. Rais Oliver oo 28 jir ah ayaa deriskiisa ka careysiiyay codsiga ah in laba libaax gurigiisa uu ku dhex korsado. Derisku aad bay uga caroodeen codsigiisa maadaama uu libaaxu yahay xayawaan laga baqo. Oliver waxa uu doonayaa in uu gurigiisa ku dhex korsado labadaasi libaax oo min 7 bilood jir ah oo la kala yiraahdo Rocky iyo Roura oo uu ku korsanayo laga soo bilaabo bishii February oo dalka Czech Republic uu ka keensaday. Libaaxa oo asal ahaan Afrika laga soo dhoofiyay ayaa waxa ay ku nool yihiin qaybta dambe ee guriga Royce. dadkii deegaanka ee Royce deriska la ahaa codsigiisa aad ayay uga hor yimaadeen. Guddiga madaxa ka ah deegaanka dadkii deriska la ahaa waxa ay kula taliyeen in ay arintan ka soo horjeestaan. Rais ayaa haddii ay deriskiisu ka soo horjeestaan oo ay isku raacaan in libaaxyada agtooda aan lagu korin, waxa suurtagal ah in libaaxyadan lagala wareego oo dawladdu ay la wareegto maadaama libaaxa dabiicadiisu ay tahay in uu wax ugaarsado. xilli kastana uu dadka deegaanka khatar ku yahay dabeecadda deegaankooduna aanu munaasab ku ahayn. Guddiga deegaanka ayaa ka codsaday Rais in uu warqad aqbalaad ah kala yimaado deriskiisa oo ra'yigooda la tixgelin doono, kadibna codsigiisa si gaar ah loo eegi doono in loo ogolaado in libaaxyadu ay gurigiisa ku sii noolaadaan iyo in kale.